aqoon-yahan waxgarad iyo odayaal iyo caaqil ka soo jeeda bartamaha iyo bariga magaalada Hargeysa ayaa raalingelin waxa ay u direen taliyaha ciidanka bilayska Soomaaliland Cabdilaahi Fadal Iimaan hadalla ka soo yeedhay wariye Cali Seenyo dhawaan odayaashan iyo waxgaradkan ka soo jeeda gobolka Maroodijeex ayaa waxa ay maanta shir jaraa'id oo ay warbaahinta kula hadleen Harwanaag ayaa waxa ay ku sheegeen inay raalingelin ay u dirayaan taliyaha ciidanka bilayska Soomaaliland waxaana yiraahdeen sharanka booliska Soomaaliland waa nin waaya arag ah waa ninka dalkan ka curiyay nabad salka loo dhigay runtii horena waxaan leeyahay in bil sharaf la siiyo maamulka booliska ay ku qorxay in sal fasli dacwooyinka hadii aad baan waxaa madar waxaan leeyahay bariyahan dambe waxa batay aflagaadadii xukuumadda 24 saacadood loo soo jeedinayay in bulshada qarkeed loo soo jeedinayay xubnaha ka hadlaya 24 saacadood ama chan ama muusana waxaan aaminsanay in duminta dalkaba mashruuceeda soo qaateen duqaalaan 10 qof ana caleema saarin ba habeenay maalinba media u taagan waa aflagaadeynaya ilaa fadlan hadalka xal baan ka siinaynaa halkiiba boqolaan qadanaynin wax qabtana ma yahayn xukuumadda muusana maanta hore u soconaysaa horena waxaan ugu yiri anigu yaagay dhibli baaxay bartay dhib maroodi ay ku fadhiyaan maanta muuse iyo daba jankuba waxa la sidaraa Cali Seenyo isagoo sheeganaya abgaan isagoo sheeganaya aqoonyaha isagoo sheeganaya neergarad isagoo sheeganaya suxufi inuu maanta waxa weeye personal attack sameeyo oo chalankii ciidanka booliska Jamhuuriyadda Soomaaliland si anshax daraa ugu gafo waxaan talo ku siinay Cali Seenyo nin weyn hadduu ku foo cidna meersado ka boorkiis ka tuma hadalka waxa weeye inuu si degdeg ah xaal war looga bixiyo anaga cid daratay ma jirto cid maanta na adeegsanayso oo uu gurudinayna ma jirto laakiin sharciin damiirkayga nafaraya qofka mas'uuliyadda qaranka haya ee lagu gafo inaanu u hiilna xaq baan u leeyahay waa ayaan daraalay in cali maanta inuu dad iska soo galiyo isagoo suxufiya oo uu yiraahdo dadkaas waa lagu gafay waa la celi xaq u malahay ugu horreyn cali waxaan sheegayaa cali horta Djibouti maanta leeyahay laba dal baa la culeysiinayaa Djibouti wali laba dal baa la culeysiinayaa cali waxa farayaa inuu qarnamada Djibouti ku gafay ninka maanta soo duulay Soomaaliland waxa weeye nin aan u jeedin inuu dalku noqdo dawlad cadliya kolka kaawan ka soo horjeedna maanta ninka soo gelaya waxa weeye inuu sharci ku soo galo isagoo fiiso sita kolka ama madaxweynaha ay noqdaan janka booliska ha noqdeen waxaan ka soo bixin oo jaran u soo bixin ninka yiraan ku soo galo been buu sheegay wadaha Soomaaliland ninka doonaya inuu mashruuc soo qaato annaga ka diidnay waa been ha sheegina qumaati waxa wadato wacadayso sayshayna dhaleecayso Djibouti oo walaalaha aanu leenahay isku mid oo mucaahada naga dhaxayso dooni mayna annagu taa tahay ninka aad iyo aad baan ku leeyahay dib uga noqo xaal ka Djibouti iyo Soomaaliland laba ku coloobaya maaha kelmadda Cali Seenyo meelkiisa laguma coloobi karo waxaan leeyahay Cali Seenyo halka waad ku gaftay dib arrimaha dib uga noqo Cabdilaahi Fadal maanta nin kelmad la yiri ku dhaleecayo Soomaaliland wuxuu qabanaysa maaha waxaan leeyahay war madaxweynaha iyo Soomaaliland madaxweynaha iyo jananka bilayska ee bari iyo galbeed meel kasta ay taagan tahay hadiya habeen u taagan ee ku ilaalinaya wax laga liqi karo way wax la soo gali karo waxaan leenahay ninka sidaada hawl yar ku gali karmayst Umar Aw Ali Bulsha TV Hargeysa.